maxamed nuur aadan adeer alla ninkaas laakiin waxaan dhihi karaa waa cilmi boodheriga nool ee maanta dunidan baaqiga ku ah. ninkaas aniga waa arki jiray yaraanteedii Kismaayo maadaama aan joogay dad badan oo reer Kismaayo oo daawadanayaan dabcan inay arki jireen waa filaya marka wuxuu ahaa nin iska naxariis badan afgaaban dadkana lacag siiyo waxaa jiro dadku iska wada dhibaataysan yihiin ani qof walbo oo xanuunka dhimirka la xanuunsan waa lima dhihi karo micnuu la waalan yani micnaa haysta yani duruuf uu halkaa la fadhiyaa ama dadkuna waxaan dhihi lahaa dadkan xanuunada qaba yani in lasii waalin waa waalanta la dhihin laakiin lala sheekaysto wallahi waxa ka naxariis badan yani ma laha. waxaan daawadayaal kusoo dhawaada si gaar ah oo idinkaga diyaarnay wariyaha arrimahaas oo falka ku caanbaxay ee idle marka hore kusoo dhawo beejkiga ayaa Yuusuf marka xigtana waxaad noo sharaxdaa taariikhdooda. waa islaamay ayaan adigii daawadayaasheeda magacayga waa Idle Aadan Maxamed aniga waxaan ku dhashay magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose heerarkayga waxbarashadana waxaan ku kala qaatay magaalada Kismaayo iyo soo kale magaalada Muqdisho caasimadda dalka oo aan joogay xilliyo ay iska adkeyd nolosha magaalada in warbaahinta aan ka shaqeeyana dabcan waxay ahayd wax asxaab aan wax wada baranayn ay ugu dhiirigeliyeen waxaana howlahan warbaahinta bilaabay sanadkii 2013 iyadoo oo hadda aan ku guda jiray saa aaminsanahay wax ku dhow 10 sano alxamdulillah intaasna waxaan sameeyey waxyaabihii iyo waajibaadkaygii layga reebay. inta badan waxaad u hadashaa dadka aan codkooda meel dheer gaarin maxaa kugu kalifay ama sababtaad u dooratay in dadkaas aad u hadasho noo sheegi wallahi horta su-aashaas waa su-aal ani saameyn igu leh maanta qofkii ugu dhiirigelinayna adduunkan oo ila saarneen marka la yidhahdo saxaafadda way firaaqooyin badan tahay yani waqtigan la joogana waxa ay dadku daawadaan waxyaabaha xiisaha leh ee bulshada ka qarsoon warbaahintana waxaa la yidhahdaa awoodda saddexaad ee adduunka si guudna waddankeena oo kaalin muhiim ayay ku jirtaa maadaama waddan soo kabanaa u yahay aniga in bulshadan danta yar ee u baahan in loo hadlo horta macalinkayga marka koowaad waxyaabaha uu i baray markaa warbaahintan baranayay ee ka mid ahayd iyo sidoo kale waalidkayga oo ii barbaariyey inaan noqdo naxariisle dadka gargaara una naxariista saaxiibkay walaalkay qaali ah shakhsi maanta iga hooseeyo maxamed ciise koona ayaa shakhsiga horta igu horreeyay ee dhahnay sheekooyinkan siyaasadda ta iska daysad arrimaha bulshada u dagarigano sheekadii ugu horreeyey oo aan sameeyin waxay ahayd bicole noloshiisa soo bandhignay xaqiiqatan wixii maalinkaas ka dambeeyay aniga oo macaansaday waxaa ku jirtay adeer helowle iyo hooyo ceeblo nuur buure odaygii ariga raaci jiray Kismaayo dad badanaa xigay oo ku imaadase oo intaas ku imaadeen taladii walaalkay koona alla ya raxma saaxiib wadadaada waa ku dhiman doonaa insha allahu tacaala. caqabadaha aad kala kulantay intaad sheekooyinkan soo bandhigaysay oo dhanka bulshada kaaga yimid wallaahi caqabad horta ma jirto oo dhanka bulshada iga imaatay dhiirigelin iyo sidoo kale ammaan iyo duco maahine laakiin waxaa jirta mararka qaar waxyaabo la yaab leh oo dadka wax loo sameynayo lagala kulmo tusaalahaan qof shala baahnaa markaad telefono u samaysid horta aniga dadka waxaa ugu sameeyaa yani in qofka asaga lambaro uu leeyahay oo isaga wixii yani aniga iga madax banaan aniga hay-ad malihi company malihi magac aniga aan wax ku aruuriyo ma jirto akoon ani aan leeyahay yani oo qaasi ah qof bini aadan weligii wax uma aruurin shakhsiga waxbaa u furaa si ana baro hadaa dhinto mise aan howl qabsado ay hawshiisa halkaas uga sii socon karto yani waa adigii aniga oo kale maanta marka caqabadaha ma jirin bulshada iga imaata waxaan dhiirigelin ka ahayn iyo duca waxaa jirta marka dadka wax loo qabanayo qof shala baahnaa oo ilmeynayay marka u tagtid wax ka samaysid dadka Soomaaliyeedna ay garab istaagaan yani asaga naftarkiisa adag tahay mararka qaar inay ka dhaadhacdo shala waa baahneed laakiin maanta lacag intaas leeg ayaa akoonkaaga kugu jirto dadku qaar hurdo la-aan ay ka dareemaan dad waaba iska baxaanba yani wixii intay kala baxaan iyada mar walba access wala awood leh oo iska baxayaanba yani waxay isleeyihiin lacagtan yaa la iska qaadan si idin kusoo gashay marka dadkaas unbaa waxyaabo la yaab kala kulmaahine wax caqabada oo dhanka bulshada iga imaatay ma jirto sidoo kale waxaa iska jirto yani qof shalay waalid la-aan aha ilmo la-aan aha ama walaal la-aan aha ama garab la-aan aha maanta marka wax loo qabto inuu helayo ilmo adeero qabiil asxaab ehel walaalkiis walaashiis soo baxayso yani waa yaabaysaa mararka qaar marka waxaa maqli jiray labadii qof ee walaalaha ninkii lacag leh aywen waa mahadsantahay.
ma inoo sheegi kartaa sheekooyinkii wixii sax badnaa ee aad soo bandhigto iyo waxyaabihii bulshada kaaga yimid macnaa falcelintii bulshada kaaga timid wallahi horta qofka wariyaha ah ani ahaan waxaa i dhihi karo waxaasaa xiise lahaa dadka bulshada markaa daawato warbixinada oo ilaahay ugu beegay laakiin dee naftirkeyga waxbaa xiiseyn karaa mararka qaar aniga waxaa jirta warbixin aan ka sameeyey environmentiga oo yacni deegaanka qaamqaam dhirta aan la jarin oo qofkii geed jaro halkaas laga qaadayo wax u dhigmo magta qofka warbixintaas waxay noqotay mid soomaalida miidiyaheeda ay aada u isticmaalaan iyo sidoo kale warbaahinada caalamiga xitaa ay naga iibsadaan oo u gudubto sidoo kale qisooyinka dareenka leh waxaa ka mid ahaa aabbe waayeel ah oo yacni ari ku raacayo wax ka yar 1,000 shilin soomaaliya neefkii maalinkii oo muddo bila gurmad aa u sameynay akoona aa u sameynay keliya 1 bil ee ugu soo dhacday lacag dhan 100,000 oo dollar alxamdulilaahi taas ilaaha ku mahadsan kadibna shacabka soomaaliyeed maanta baahanihii waa taajir sheer ku leh shirkadaha ugu waaweyn ee dalka marka waxyaabaha aniga xiisaha ii lahaa waxyaabahaas ka mid laakiin bulshada sheegi kara amuuriyaasha iyadoo sheekada adeera oo ahayd midii ugu saameynta badneed ee sanadkan sii dhammaanaya maxay tahay sababta kugu kaliftay in aad adeera sheekadiisii u guda gasho usoo bandhigto ilaa xamar u timaado adiga adeerana barashadiina halkay ka bilaabtay waa mahadsan tahay maxamed nuur aadan adeer alla ninkaas laakiin waxaan dhihi karaa waa cilmi boodheriga nool ee maanta dunidan baaqiga ku ah ninkaas aniga waa arki jiray yaraanteeda kismaayo maadaama aa joogay dad badan oo reer kismaayo daawadanayaan dabcan inay arki jireen waa filaya marka wuxuu ahaa nin iska naxariis badan afgaaban dadkana lacag siiyo ninkaas anoo maalin maalmaha ka mid a gaari aan wata meel iska dhigay waxaan damcaynaa b l raaca maadaama tagaasida magaalada markaas aadaa loo baarayay tagsiga b lkaas kusoo raacay kheyraaba ku jira b lkii adeera oo waxaa noo hor imaada jawaankiisa wato maamo isku deegaana ahayana gaariga nala saarneed gaarigu iska istaagay iyo aragtida kulankii iyo aniga kursiga iga dambeeya saarneed aan maleyna markaas waxay tireen gabar u sheekeynaysa marka waxay tiri ninkan adeeraa la dhahaa saan waxaa u galay yacni gabar uu jeclaa oo laga guursaday ani maamadiyaaba oo aan ku dhegay markii aan dhammaama axwaashan iga waran see wax u jiraan yacni qof aa arkaysa intaasoo san handala xogtiisa maanta aa maqashay marka xogtii aa baaray muddo bil ay ugu qaadatay nin deegaanka helay oo mahdi la dhaho ninkii waqti badan oo asana beerley u iga maqnaa kadib asagaa helay saaxiibkiisuuba noqday ninkii ugu horreeyay qisadan yacni u sheegay weedha xanuunka badan ee saaxiibtaa waa la guursaday ayay ahayd saasaa sheekada wejigeeda koowaad ku sameeyey alxamdulilah doctor xabiib aa xanaaneeyey oo u mahad celinayo waa la daaweeyey ilahay si degdeg uu ku caafiyey ninkii waxaa usoo noqday xasuusihiisii oo ay ugu horeeyaan waxa uga cajiibsan oo ah aayadaha qur-aanka kariimka qowlkii allah oo uu korka akhrinayo ilaa juscamo oo dhan suuradda harta weydiinis sidoo kale af soomaaliga inuu akhriyo bilaabay qisada marka adeera la kulankeena saas u ahaa warbixin labaadaa jirta aan ka sameeyey annagoo war iyo wacal aan ka haynin gabadha carfoon ahayd oo dib aan kala kulmi doono kadib carfoon fariintii gaarta oo ah ninka inuu cafiyey iyada waxay ka timaada dhulkan waqooyiga muddo kusoo nool burco kadibna hadda meelahan kale joogtaa oo dhulkan gacan dowladda ku jirin saasay ku kulmeen sheekadana dee feeskeeda saddexaad oo guurka adeera bisaa dhiman yaan uusan dhabka ahayn marka siyaasi intaa kaamira ka daba qaadan lahaa waxaan doortay ku dhiban oo qisiis ay duugan tahay inaan badisha u qaato qalinka u qaato soo bandhigo de dabcan dadka soomaaliyeedna la wadaago de dabcan waa wax waajib ah oo na saaran maxaan kaamiradan u wadanaa muxuu ilaahay codka noo siiyey maxay bulshada noo aamintay waa inaan u gargaari karnaa aamusanayaasha danta iyo duruufaha ay maalmo ciileen waana sii wada doonaa insha allah waa mahadsan tahay walaasha ayaan laba fariin baa rabaa in halkan u gudbiyo oo ah saaxiibadii saxaafadda ku jiro marka hore waxaan dhihi lahaa saaxiibayaal waxaan joognaa waddan annaga noo baahan inaan bedelno annaga noo baahan in aan ka gudbino sawir ka duwan kan ay maanta xigtaan ilmaha joogo washington ama china joogo ama dubai joogo yacni weriye halkaas ku suganaa waddankaaga xumaantiisu tabin lahayd wanaagga waddankaaga tus xitaa adiga lacag ku bixi sidii loo gudbin lahaa sheekooyinkan waa kuwo alla xaggiisana loogu dhowaanayo haddii ilaahay uu ku sugo camalkaaga adduunkana sumcad iyo sharaf laga dhexlaayo waxaa dhihi lahaa marka dadkaas danyarta in loo hadlo lasoo bandhigo wariyaasha halkaasaa uga baxaya dabcan waxaa jiro dadku way iska wada dhibaataysan yihin ani qof walbo oo xanuunka dhimirka la xanuunsan waali ma dhihi karo micnuu la waalan yani micnaa haysta yacni duruuf uu halkaa la fadhiya ama dadkuna waxaan dhihi lahaa dadkan xanuunada qaba yani in lasii waalin waa waalanta la dhihin laakiin
lala sheekaysto wallahi waxa ka naxariis badan yacni ma laha ana hadda waxaa ka imaada magaalo Kismaayo la dhaho magaaladaydaas waxaa ku faraxsanaa maanta inuusan jirin inta la yaqaano qof darbi jiif ah oo magaalada ku dayacan sidoo kale inuusan jirin qof waalan oo muddo sanado la yaqaanay oo magaaladaasi dhex wareegaya doctor xayo uma hadcina dhammaan waa xareen yacni falcelin waxaa kala kulanaan aad u wanaagsan waxaa dhihi lahaa marka dadka qisooyinka noocaas ah ay bulshada ha u bandhigaan dadkan ha la caawiyo mar kasto beri maanta haddaa caafimaad qabtid adaa booskaas geli karo gargaara noqo si beri adina bulshada kugu gargaarto waa mahadsantahay